إلهي بهرتم ما حد سكره إن أنا عاوه هلكن كوكورانو أو سي صريحة أو ضبطة عن سؤال سوي دينه سووا حق ورهنه وهي عقبتان الواحد أنا نجاح ليسن أتصو بندكتان آدي يعني رتي إذا كان ما حد علناه مركه هراء أنت هذا الكي جوده وقلين وحن ربع أنا ما قاعد أقول هاللاية إن أنا أهم بليجيو ما أنت ما أنت صحافة مي سد حديدة صحافة حرطة إن شاء الله إنه نقطه سنة مناكسن سنة كيس نوق أرسيو نبض دو بيرحلو وحن الله هم بليجيو marka xigta xaqiiqatan dal waxaan nahay soo kabanaya oo dawladnimadiisu ay curdun tahay hay'adaha kale oo private ka ah iyo hay'adaha dawladdu kulli isku si iyay u soo kobcayaan oo runtii waxyaabo badan oo dhaliilo ah yaa dhankeena ka jira dawladda dhexdeedana ka jira waa xaqiiqa dawladdu waxaa laga yaabaa dhexdeeda haddii ay tahay hay-adaha amniga iyo hay-adaha rayidkaba inay u baahan yihiin tababaro aad u badan in la siiyo training sida bulshada loola macaamilo loola dhaqmo khaasatan markay timaado media xorta ah waxay u baahan yihiin tababaro badan ay u baahan yihiin sida inay tahay inay ixtiraamaan inay sida ay ula macaamilaan ama ula dhaqmaan ay ku jirto xushmo badan idinka naftigiina dhankiina curdun ayaa tihiin laakiin inaad ka taxadartaan inaad iska ilaalisaan waxaan dhab ahayn oo aan jirin inaad iska ilaalisaan maxaa yeelay adigu ma rabtid in lagaa been abuuro oo waxaadan ahayn lagaa sheegay ma rabtid marka qofka aad wax ka sheegaysaan naftigiisu xuquuq leeyahay saad idinku xuquuq leedihiin inkastoo saa sheegteen annaga intay aan nimid aynan wariyaasha aynan daba cararin qof alla qofku wax sheega inkastoo waxyaabaha inta badan aad sheegtaan haddii la fiiriyo ee xitaa geli karto dembiye ay geli karaa laakiin dhib ma laha waa isla tukubaynaa annagana waa koraynaa idinkana waa koraysaan waqti u baahan tahay inaad wax barataan annagana waqtigaan u baahannahay dawladdu inay koobcdo wax barato labo بعدما dalkeenu curdun yahay dagaal sokeeyana ka soo baxnay dagaalka sokeeyana wixii keenay ee ahayd dad runtii dadka Soomaaliyeed in la isku diray oo waxyaabaha annaga aan u liidano sensitive ka aan ka nahay aan u jilcsanahay ana ma u dabacsanahay ay tahay qabyaaladda noo isticmaalay qabyaaladiina aan dalkeenu ku duminay iyay naga tagtay runtii dawladnimadeennii in qofkii uu ku noqdo dhaqankii miyiga marka uu hoos galo ama u magansado odaygiisii dhaqanka oo haddii uu xaleeyo magaalo isagoo jooga Muqdisho ah yaa waxa looga dacwoonayaa oday dhaqameed looga dacwoonayaa markaas hawshiis waxa lagu xalinayaa sidii baadiyaha loo xalinayo haddii waa meeshii dawlad ahayd saldhigeedii xarunteedina ahayd because systemkii isbedelay dawliga ahaa oo qofka lagu xisaabtamayo shakhsi ahaan oo hadduu xaleeyo qofkaasi uu soo mas'uul ka yahay dambigiisa oo maxkamad lagu geenayo hadday tahay civil iyo hadday tahay criminal labadaba oo qofkaas aan loo raacin qof kale haddii uu leeyahay qof kale walaal iyo hadduu qaraabo leeyahay loo raacin marka waxa la rabaa inaan lagu celin marka oo dadkii aanan kicin lagu sameyn iyo maxaa la yiraahdaa la soo xasuusin wixii dhibka keenay oo dalkeena dumiyay oo adduunka naga reebay oo dawladnimadii noo diiday iyo systemkii oo qof walba oo wax garanaya ama dadka wax tari lahaa uu isaga tagay dalkii bacdama uusan ku helaynin cadaalad uusan ku helaynin muuqaalada marka aad muujinaysaan muuqaalada sax waxa laga yaabaa xoogaa in telefishinka uu ku helayo rating fiican oo ay dadka xiiseeyaan oo la daawado laakiin record galaysa ogaada
image-ka dalka iyo iyada naftiga wax u dhimaysa marka adigu intii aad qayb ka noqon lahayd dhismaha dalkaaga ama dowladnimadaada waxaad qayb ka tahay wax loo isticmaalo Soomaaliya inay tahay failed state dal burburay dad burburay meel aan lagu noolaan karin maxaan ku raadaa meel aysan dowlad ka jiri karin marka waxaan idinkula dardaarmayaa inay qayb ka noqon wax alla wax image-ka dalka ka hadlayna ayaan dhawid waxaa yimid oo kusoo dhuuntay meeshaan nin ruush ah oo maray meelaha ugu xun magaalada oo ka sameeyay documentary Soomaalidu runtii si fiican ay yeeleen waa ku kaceen waana ka xumaadeen sida ninkaas uu u haleeyay sumcadda iyo bilicda magaaladan iyo dalkeenaba Soomaalidu marka ninkaasi waxay ku diideen waa ajnabi dalkooda fool xumeeyay oo haleeyay marka in aan iska ilaalino wax alla wixii xumeyn kara image-ka dalkeena inaan iska ilaalino dadaal badan waa haysaan waa loo baahan yahay dadka waa wacyi gelisaan oo runtii information badan waa bixisaan waxaan aaminsanahay hadda kulligii idinkaa iga xoog roon in dadku anymore aysan rabin wax aad u xun in la sheego oo dadka damiirkoodii uu soo noqonayo aysan dadku xiiseynaynin ama fake news ama negative images inaysan rabin oo marka aad sheegtaan wax wanaagsan ay dadka idin fiirsanayaan waa jiraan wax xun oo la sheego oo la xiiseeyo waa jiraan laakiin waa marka la personalize gareeyo laakiin markay tahay news episode ay tahay oo wax guud laga hadlayo oo negative ah dadku runtii ma jecla mas'uuliyadda waana wada saaranta مسؤولية وأنا وصارنت دولة كلية معها إني كشقيس وناجة دولة نماذج إذا كنا فتجينا حدي عاد وح وناس كشقيسان دولة وقول لين كتان حي وح وناس وشقين وين مركا دولة مسؤولية صار إذا كانوا واحد صارنت هاي معها أنا جينا عن تايتلز كي مقعيدة هيسنو أنكو خصبنا كلية معها إذا كنا فتجينا تايتلز وايستان لكن تايتلز كي تايتل برايفت مسؤولية وانا وصارنت حدي أركتو وح خلدن إن investigation أتسميسه أو آدن لبودين حل نعكليه آدن قادن أو آد بالانس وحي نقدان أو آد دقيسته لانك كلا وحي الشيغان وأركتا وحن إني جرته وقادن يسا وحن لكن وحا أغانيس وحا دبقليسا لانك كلا أو حماتا سمينايا محاكو كلي في حماتا إني سميان وعناها مركز qofkii cadaalad u sameys wuxuu ogaanayaa qofkii marka inuusan khalad ku noqon waxa laga yaabaa inuu idin sheego sabab jirta oo aadan ogeyn laakiin iyada naftigeeda ay muhiim tahay in la sheego marka in newska aad sheegaysaa naftigiisa uu ahaado news balanced ah oo uusan dhinacna u janjeerin waxaan aaminsanahay inuu jiro koboc maalin walba de waxbaa la baranayaa sida aad sheegteen oo aad qirteen in isbedel badan oo ku dhacay xiriirka aad leedihiin dowladda inay ka wanaagsan tahay ama sida laydin la macaamilo inay ka wanaagsan tahay sidii hore oo mar ka dambeysaba la arkaayo improvement horumar la arkaayo waa dhab weeye hal mar de wax walba ma dhici karaan in la sameeyo maalin walba waxbaa laga baranayaa marka waxaan aan leeyahay annagana aan dadaalno dowlad ahaan oo waa kobceynaa tartiib yaan u tallaabsanaynaa meesha aan rabno intay rabta nagu qaadato idinkuna naftigiina dadaala waxa aan ka wada shaqeynayno runtii wax kala fog ma aha waxaan ka shaqeynayna waxay tahay in dalkan istaago in dowladnimadeena ay xoogeysato way waxaan ka wada shaqeynayno taas way waxa maalin walbaba hadda aad sheegteen ee u yaraanayso geerida ama dhimashada la beegsanayo wariyaasha inta aan dalka u nabad noqonayo wariyaasha riskigooda waa yaraanaya haddii dalku uu galo
chaos ama dhibaato u galo waa khasab waa la beegsanayaa wariyaasha waa khasab maxaa yeelay environmentigii yaa wuxuu yahay environment idin ku shaqayn karin ama environment aan xor noqonin aan idiin qiro annaga waxaan aaminsannahay ayna tahay in miidiyuhu ama saxaafaddu ay xor noqdaan boqolkiiba boqol intaas keliya maaha inaan saaxiib la nahay waxaa ku jira danta dadkeena ku jira waxaad arkaysaa hadda Kenya oo kale markii aan badda hawlaheeda aan isku haynay waa idaacado iyo newspapers oo xor ah oo aan dowladda shaqo ku lahayn inta badan waxaad moodaaba inay sheegayaan waxa dowladda afkeeda dowladda inay ku hadlayaan annaga maxaan sameynaa marka iska daa inaan dowladda aan difaacno waxoodaan sheegnaa ciidamadoo kale siyaasad maaha iyada naftigeeda waa wax dalku leeyahay oo la wada leeyahay ciidanka qalabka sida dhididkooda iyo dhiigooda iyo dhimashadooda halkan ku fadhinaa oo maalin walbaba hadduusan dhiban u dhaawacmaayo haddaysan iyaga ahayn halkaan maanan fadhin lahayn marka in aan ka shaqeyno ciidankan inuu yahay ciidan qaran oo aan marna la siyaasadeynin marka macnaheedu waxay tahay waxyaabo waxaa jira aydan ka fiirin keliya hal idin fiirsado ama aydan ka fiirin waa dad siyaasad isku diidan aydan ka fiirin oo aad ka fiirisaan wax dalka oo dhan u dhaxeeya oo la wada leeyahay iyo wax qof gaar u ah dowladnimadu waa la wada leeyahay in la wada ilaashado weeye waxay ka shaqeynayso hadday tahay arrimaha dibadda waa la wada leeyahay waxay ka shaqeynayso hadday tahay ciidanka qalabka sida waa wax la wada leeyahay haddii aad aragtaan corruption iyo wax foolxun ay dowladda sameynayso waa loo baahan yahay in la sheego iyada naftigeeda adigoo siinaya fursad meesha wax ka halaysan yihiin ya inaad dhankooda aad ka hesho marka annagu waxaan aaminsanahay dowladdan inay tahay dowlad friendly la ah saxaafadda haddaad rabtaan dhib ma laha dhanka mucaaradka waa jiri kartaan oo haddee adduunka waaba ka jiraaba xisbiyadu idaacadaha tviyadu waa waxa weye waa qaarna waxay jiraan xisbi way jiraan qaarna xisbi kale taageeraan waa dhib ma laha taas waa siyaasad oo ah dowladdu maxay dhaqaalaha ka qabatay dowladdu maxay ka qabatay arrimaha caafimaadka markaas joogto oo la sheegayo waa wax feer ah waay laakiin wax markay ay tahay wax naga wada dhexeeya siyaasad ma ah xisbina ma ah waa wax u baahan inaan ilaashano haddii kale dee wixii oo dhan baa dumi kara waxaad ka hadashaan markaas meesha ma yaallo marka idinku naftigiina inaad madaxiina aad ku haysaan dowladda idinkaa iska leh dowladda cadow idin ma aha haddee wax khaladana waa sheegi kartaan waa feer idinkoo siinaayo fursad sababtay u khalad inaad weydiisaan marka waxaan rajeynayaa inaan su-aalihiin idinkaga jawaabay aan idinla wadaagay ama idinla qaybsaday fursaddan munaasabaddan may 3deeda oo dee maalinta ah saxaafadda in sha allah sidaan aan isugu badanno hadba marka wixii jira oo xaaladaha jirana aan iska wareysanno